kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani warbaahinta xulka wararka kusoo dhawaada warka warbaahinta qodobada aan idin haynana waxaa ka mid noqonaya cali maxamed geedi oo xisbi ka madax bannaan nabad iyo nolol samaysanaya dowladda federaalka Soomaaliya oo amar culus dul dhigtay xubnaha beesha caalamka u jooga magaalada Muqdisho amaradaasi maxay yihiin waan idin soo gudbinaya Faisal Cali Waraabe hogaamiyaha xisbiga mucaaradka UCID ayaa waxa uu dafiray jiritaanka awoodda dowladda federaalka Soomaaliya askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho dilal siyaabo kala duwan maanta uga dhacay Muqdisho iyo faahfaahinadii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbinaya wariye ka tirsan warbaahinta dowlad goboleedka Jubbaland oo shaqadii laga eriyay kadib markii Facebook ugu taageeray mid ka mid ah murashaxiinta maamulkaasi qodobadaasi ayaa daawo doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 6 bisha koobaad July 2019 saaxiibayaal u diyaar garooba daawashada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan fadlan saaxiibayaal channelkan haddii aad ku cusubtiin kusoo biira subscribe dhaha calaamada kambalelka furta si aad u heshaan warar iyo warbixino xasaasi ah ayna ku bilownay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay amar culus dul dhigtay xubnaha beesha caalamka u jooga magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo magaalada Muqdisho kula hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qodobadii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay kulan maanta ka dhacay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho la qaatay wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya jooga wasiirka ayaa sheegay in kulankan looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ka jira dalka Suudaan waxa uu sheegay in dhammaan safiirada ay isla garteen in la taageero heshiiska dhawaan ay gaartay golaha militariga Suudaan iyo kooxaha banaanbaxa wada waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaalo badan ku bixin doonto sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka ka jira dalka Suudaan isla markaana ururka jaamacadda Carabtu uu dadaalo badan ku bixin doono dejinta xaaladda ka jirta dalka Suudaan wasiirka wuxuu ku dheeraaday dal dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya xiriirka u jirtay waxa uu sheegay in dowladdaasi si cad ay u xadgudubtay Soomaaliya qarannimada isla markaana qayb ka mid ah Soomaaliya ay casuumaad dal ahaan ugu fidisay waxa uu sheegay in sababta arrintaasi u gaaray ay tahay in dal walba uu ixtiraami doono waxa uu xusay in go'aankan xiriirka loogu jaray uu yahay mid laga baarandegay isla markaana waqti badan la geliyay
faysal cali waraabe hogaamiyaha xisbiga mucaaradka u codaya waxa uu dafiray jiritaanka iyo midnimada dowladda federaalk Soomaaliya xilli maanta warbaahinta uu kula hadlay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu ka hadlay dal dhawaan dowladda federaalk Soomaaliya ee xiriirka u jartay iyo wadahadaladii dhawaan fashilmay ee u dhaxeeyay maamulka Somaliland iyo dowladda federaalk Soomaaliya waxa uu tibaaxayba in dowladda Soomaaliya haatanba aysan u qalmin in wadahadal lala furo waxa uu sheegayba in maamulka Somaliland dal madax banaan ay tahay ayna xasilin doontaba magaalada Muqdisho iyo dowladda Soomaaliya halka ay ka arrimiso sida uu tibaaxay Faysal Cali Waraabe ayaa mar uu hadlayay waxa uu yiri ma aqoonsanin dowlad Soomaaliya ka jirta Muqdisho ee waxa halkaasi jooga wiilal yar oo galay madaxtooyada Muqdisho waasta dalkiisa u dhigay Faysal Cali Waraabe dalkiisa ayaa waxa uu ku soo aadiyay xilli madaxweynaha maamulka Somaliland safar dibadda uu ku maqan yahay xilli safarkaasi dowladda federaalk Soomaaliya ay ka carootay waxaana ay qaaday tilaabo dalkii madaxweynaha si casumayna xiriirka ayaa loo jaray magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa siyaabo kala duwan uga dhacay dilal dhowr ahi dabley bistoolada ku hubeysan ay gelinkii hore maanta askari ku dileen gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir askarigan la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cabdi Xasan Mataan Cabdi Coday waxa uuna ka tirsanaa ciidanka booliska Soomaaliya askarigan ayaa mariyay agaarka suuqa labaad ee magaalada Muqdisho ee liirada suuqbacaad waxaana dilay dabley bistoolada ku hubeysan waqti dheer kadib ayaa waxaa goobta dilka uu ka dhacay soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk Soomaaliya waxaana loo qaaday xarunta dambi baarista ee CID-da geesta kale askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya ayaa maanta waxa uu dil iyo dhaawac ka geystay gudaha magaalada Muqdisho faafaahin dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan dil iyo dhaawac uu askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya ka geystay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya toogashadan ayaa waxay ka dhacday wadada isku xirta iskooyska dabka iyo bakaaraha ee magaalada Muqdisho dilkan ayaa loo geystay wiil dhalinyaro ah oo kaxeynayay mooto bajaaj nooceedu yahay Pasio waxa uu rasaas u furay askarigaasi ku dhaawacmay qof kale oo shacab ah oo goobtaasi ka ag dhawaa siday sheegayaan wararka aynu helayno goobjoogayaasha halkaas ku sugan ay soo warinayaan bajaajlaha ayaa muran soo kala dhaxgalay askariga waxaana murankaasi uu dhaliyay gacan ka hadal oo askarigii waxa uu furay rasaas waxaana ku geeriyooday darawalkii bajaajta kaxeynayay ma ahan markii ugu horeysay oo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya uu ku dilo darawal mooto bajaaj waxaase bilihii la soo dhaafay maalmihii dambaba hakad galay dilalkii tirada beelay ee sanadkan gudihiisa loo geystay bajaajyada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana arintani banaanbax ka dhigay kol hore wadayaasha gaadiidka mooto bajaajta ka shaqeysta gudaha magaalada Muqdisho ayaga oo sheegaba in ay tacaddi xoogan u geystaan ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalk Soomaaliya madaxda gobolka Banaadir iyo kuwa booliska Soomaaliya dibadbaxayaashaasi goob fagaaraha kula hadlay waxa ay sheegeen in arintani wax laga qabanayo ilaa haddana lama arag askari dilay bajaajle oo Muqdisho lagu toogtay guud ahaan warka ka daawanaysay warbaahinta xulka wararka saaxiib bajaalintaasi ayaan kusoo koobayay nabadgelyo